بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أمد الصوماليات ملك السوداني ذات كجوكتان وأيدين سلامي سلام تسكدب شركة جرائد وحكوس سابسين هاي ماركتي العدد الشلي العدي لباتن السدح دي بشي لبي طبنات لبضو كن لباتن إلا بضا وكد عدي مقالة بيدو أرنتاس أيوكوس سابسين هاي ماركتي dagaalkaas dhacay shalay uu ka dhacay magaalada Baydhabo aad ayaan ugu xunnahay shakhsi ahaan aniga waxaan ahay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya marka dhacdadii shalay dhacday anigoo daba socdo shalay kama hadlin intaas waxbaan maaragtay aan xeerinayay waxbaan isku taraygaraynayay dagaalka markii socday xataa waxbaan isku taraygaraynayay in maaragtay dadkaas lala hadlo meeshii laga soo saaro wada hadal lagu dhameeyo wixii dhanna way shaqayn waayeen aniga maaragtay dawladda koonfur galbeed si waxaan ugu soo shaqeeyay daacadnimo ah oo maaragtay oo islaamnimo ah wadaniyad ah ayaan ugu soo shaqeeyay waqtigayga iyo juhdigayga iyo dadaalkayga iyo dadnimadayda iyo kartidayda ayaan geliyay marnaba ma jeclayn maaragtay in oo maaragtay dawladda koonfur galbeed lagu xadgudbo oo maaragtay dhibaato loo geysto ama lagu cayaaro dawladnimada koonfur galbeed sababtoo ah waxay tahay mustaqbalkayna iyo maaragtay dawladnimadayna ay ku xiran tahay saas darteed marka waa ilaalin jiray in badan ayaa maaragtay aan xeerin jiray waqtigayga aan u geliyay micnaheedana ma ahayn dawladnimadaas aniga aan ilaalinayay ama ani aan difaacay habeen maalin aan u taagnaa in shacabka ama dadkayga in lagu laayo darteeda ma ahayn waxaa dhacday dhacdo aad aan ugu xumaanay oo aad u fool xun ayaa dhacday marnaba qofkii damiir leh oo qalbigiisa ku jirto islaamnimo iyo dadnimo iyo karti ku jirto uusan qaadan karin therefore marka saas daraadeed dawladnimadii anaga aan ilaalinaynay aan xeerinaynay haddii la ilaalin waayay systemkeedii iyo maaragtay sharafteedii iyo haybadeedii la ilaalin waayay mar kastaba la jecel yahay in dhibaato loo keeno ama maaragtay dhibaato lagu sameeyo aniga waxaa go'aansaday anigoo ah Ilyas Cali Nuur Cali oo maskaxdayda taam ay tahay in xilkii aniga aan heeyay oo wasiirnimada ahaa in maanta oo 24 bishii 12aad 2022 inaan iska casilo xilkaas aan ka tago sababta aan ugu tagay micnaheeda ma aha kursiga ani aan ku fadhiyo micnihiisa ma aha in dadkaada la dhameynaa adiguna waad daawanaysaa waad fiirsanaysaa waad ku raaxaysanaysaa kursiguna waa ku fadhiisanaysaa waa ku fadhina weligaada fiina abad wax soconaayo oo maaragtay ama qalbigayga qaadanayo ma aha anigoo cidna igu qasbin cidna iga codsanin idna lacag igu siinin idna maaragtay xanti igu siinin dadnimadaas iyo karaamadaas iyo sharaftaas anaa gaaray oo cawada ay tahay maaragtay habeen axadda ay soo galayso maaragtay taariikhna ay noqon doonto 25 anaa go'aankaas gaaray anaa maaragtay hindhay waxaan ku arkay aan u qaadan waayay aan u dul qaadan waayay xukunku waxaan u joognaa ama qofka mas'uul markuu yahay wuxuu u joogaa in ma aragtay dalkiisa iyo dadkiisa inuu difaaco uu ilaaliyo dawladnimadana uu ilaaliyo waxaa dhacday wax aan la qaadan karin oo islaamnimadana aysan ku fiicnayn dadnimadana aysan ku fiicnayn ballanka baxna ay tahay annaga habeen dhacdadan intaysan dhicin ka hor anigi iyo maaragtay suldaankayna ama ugaaskayna ayaa waxaan tagnay iyo maaragtay khayr Allah siiye xildhibaanka igu matalo dawladda federaalka oo wasiirkaygana ah marna xildhibaankaygana ah asigo oo Baydhabo joogo arintan dhaxdhaxaadkeedii oo u yimaaday oo arintan isku dayay in badan xataa uu xalliyay asigi anigi iyo gudoomiyaha iyo suldaankii iyo maaragtay xildhibaankayna oo stateka annagoo isku daynay arintii oo hoosheedii aan ku jirno qaar xataa ciidamadii qaar ka mid ah madaxweynaha aan u geynay ayaa waxaa dhacday madaxweynaha markaan u imaanay madaxweynow annaga dhibaato badan ayaan tawanaynaa cilado badan ayaa jiro in la xalliyaan rabnaa dhalinyartaas in la hadlaan rabnaa in la wacyigeliyo u baahan yihiin in maaragtay ka shaqeynaa loo baahan yahay oo madaxweynaha ballan la soo galnay ayaa waxaa dhacday in gadaashayna laga wareegto oo maaragtay isla habeen ku xigta la soo weeraro dhalinyartii la weeraro qaarkood meesha lagu laayay qaarkoodna maaragtay meesha ay ku dhaawacmeen
qaarkood maaragtay la qabtay qaarna ay baxsadeen marka damiirkaygu wuu nasiin waayey suldaanka ama maaragtay malaaqayna wuu og yahay maaragtay in oo xataa waxaana noogu bedelay habeenkii annaga madaxweyne aan u tagnay xataa tolkii qaraabadii xataa laga dhaadhiciyey in annaga aan soo saxiinay in lala dagaalamo ama in maaragtay oo la dilo marka dadkii markaas sawirka naga qaaday ay u bedeleen in annaga meesha aan u tagnay madaxtooyada aan u tagnay in dadkan la laayo marka marnamo ma dhacayso weligeedana ma dhacayso 20 qof 5 qof 10 qof iska dhaafay cunug yar saqiir ah in annagoo kursiga ku fadhino oo dil aan dhahno ama dhib loo geysto marnamo lagama yaabo ma dhacayso marka waxaan halkan ka cadaynayaa dhibaatadii shalay dhacday mas'uuliyadeedii waxaa iskale dawladda koonfur galbeed iskale wax la xallin karo oo maaragtay lala xaajoon karo oo loo tagi karo oo maaragtay la dhihi karo mas'uuliyiintii aaway warkaaliya dadkan hal la qabto idinka maaragtay maanta aad joogtaan aad matalaysaan haddaad ka daashaan markaas aan isku soo laabano aan ka wada hadalno wixii laga samayn lahaa marka annagana lama sugin na lama ixtiraamin naguma qadarinin kursiga maanta inaan ku fadhino mase inaan joogno waxay faa'iideynaysa ma lahan haddii maaragtay malaaqii aan la qadarinaynin odaygii aan la qadarinaynin oo xildhibaankii federaalka aan la qadarinaynin oo xildhibaankii stateki iyo maaragtay wasiirkii aan la qadarinaynin annaga maanta xataa waxaan raadinaynay waxaan filaynay in maaragtay la yiraahdo dadkii la soo qabtay xataa iyo hubkii meeshii laga soo qabtay in la yiraahdo war nimankii dhibaatada geysteen waa kana dhaawacyadoodii xataa ha laga warqabo ha la daawayo in la yiraahdo ayaan sugaynay in loo yeeraan sugaynay in hubkii waa kana la yiraahdaan sugaynay in laakiin maaragtay annagoo aan ogeyna gadaasheena laga wareegto dhibaatana lagu sameeyo haddana annagoo taagan arkayno xataa waxaa dhacday wax aanan sheegi karin oo marka halkan aan ka sheegi karin marka aniga oo Ilyas Cali Nuur Cali xilkii saas darteed ayaan ugu tagay waxaa ogaanaysaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan maaragtay reer koonfur galbeed khaasatan waxaad ogaanaysaan markasta aan ku celcelinaa in maaragtay waxaan amal ama dulmigan amal aan la qaadan karin marnaba barraali aanan ku naqanaynin intaas waa intaas waxaa kale oo halkan aan ka codsanaa halkan waxaa joogo ciidamo ayaa joogo oo ATMIS la yiraahdo ayaa joogo nabadda ka shaqeeyo nabadda ilaaliyo ciidamada Ethiopia ha loo turjumo ha loo sheego aaday u mahadsan yihiin koonfur galbeed amnigeeda ilaalinteedu waa ku mahadsan yihiin sharaf ay ku leeyihiin waa u mahad celinaynaa laakiin waxaan codsanaynaa oo aan ku celcelinaa mar kastaba siyaasadda koonfur galbeed masiirkeedii ayagaa iskale ayagaana maaragtay u talinaayo ayagaa qofkay raban dooranayo ayagaa sheegaayo qofkii anfacaayo mar kasta waxaan ka codsanaa maaragtay ciidamada halkan u badan oo maaragtay ciidamada Ethiopia walaalahayna waxaan ka codsanaa inay garab istaagaan dadka shacabka koonfur galbeed in ay doortaan qofkay rabaan oo xukumo qofkay rabaan aniga intaas ayaan ku wargelina aan u sheega ay ka shaqeeyaan amniga aan loo adeegsanin siyaasadda ay dhaxgalin siyaasadda koonfur galbeed qofna aysan la safanin intaas ayaan ka codsanaynaa dawladda Ethiopia dawladda federaalka waxaan ka codsanaynaa waxaan rabnaa dawladda federaalka maanta mas'uuliyadda guud ayaday ku dhacaysaa waxaan rabnaa dawladda federaalka oo ugu weyn yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku xigo ra'iisul wasaaraha oo ku xigo gudoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanada waxaan ka codsanaynaa arinta koonfur galbeed ma aha arin sahlan ma aha arinta koonfur galbeed waa ku celcelinaa looguma talagalin in dhiig lagu daadiyo ama maaragtay dad lagu laayo kursi dartiisa waxaa la rabo qofka hadduu iimaan leeyahay oo maaragtay islaamnimo u yaqaano haddii kursiga dhiig uu gaaro sidii Shariif Xasan u baxay amal in iskaga tago aan la gaarsiinin heerkan aan la gaarsiinin madaxweyne Cabdicasiis in badan la soo shaqeeyay garabkiisan taagna waan taageerayay waxaan ku taageerayay waxay ahayd in markastaba dawladda koonfur galbeed oo horumar ay gaarsiiso oo meel fiican ay gaarsiiso 4 sano aan la soo joogay waa gaartay meeshii la rabay way gaartay koonfur galbeed haddii la yiraaday oo mana anfacayso hal sano laguma darsana haddii la yiraahdo ani maanta waxaan qaba madaxweynaha ayadoo dhiig uusan daadanin dhibaato aysan dhicin in doorasho si sharaf leh lagu qabto marka dawladda federaalka waxaan ka codsanaa ku celcelinaa in maaragtay koonfur galbeed oo ay ku dadaalaan horumarkeedii iyo wanaageedii ay ka shaqeeyaan shacabka koonfur galbeed waxay rabaan ay garab istaagaan intaas ayaan ku celcelinaa aad u mahadsantihiin xilkiina saas ayaan kaga tagay wabillahi tawfiiq والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.